wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay adeega internetka oo shalay gebi ahaanba ka go'naa magaalada Muqdisho. Ugu horreyn wasiirka ayaa beeniyay in dowladda Soomaaliya internetka u jartay arrimo siyaasadeed kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya arrintaasi. Wasiir Canshuur ayaa carabka ku dhuftay in cilad aan la filayn ay ku timid fiilada fiber optic ee soo dhex marta badda hoosteeda. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan lagu hawlan yahay in la ogaado ciladaasi iyo meesha ay ka dhacday si loo farsameeyo. Waxaa si cad u sheegaya waxa dhacay waa cilad farsamo laakiin ma ahan cilad siyaasadeed iyo hawlo kale ayuu yiri wasiirka boostada Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dowladda Soomaaliyeed aysan dhibaato ku ahayn shacabkeeda isla markaana loo baahan yahay in aan la iska eedayn tiknoolajiyadda aqoonta iyo waxyaabaha dhaqaalaha saameynaya marnaba dowladda ma siyaasadeynayso ayuu hadalkiisa sii raacay. Adeega internetka oo inta badan ku xidhan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa maqnaanshihiisa wuxuu saameeyay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana sidoo kale jira khasaare badan oo ka dhashay walow aan la shaacin karin inta uu leeyahay. Waa Cabdikariin Cabdilaahi Cabdikariim Dalmar wararka Badcas.